saaka waxa ku noqon doona iskuulkeygii aan dhigan jiray yaraantii qalax secondary school. Welcome to secondary school. waxaan leeyahay soo dhawaada dugsiga sare qalax secondary school 6 sanadood ka hor waxaan ka mid ahaa ardaydii halkan ka baxday waxaan iskuulka ugu soo noqday ardaydii aan isku galaaska ahayn oo macallimiin noqotay. tiirka aqoontiyo waxbarashada tayada sare halka aad ugu tegilayd aan ku tilmaamay kaalay aan ku tilmaamay tiirka aqoontiyo waxbarashada tayada sare halka aad ugu tegilayd aan ku tilmaamay kaalay aan ku tilmaamay تعلينت ساري عبد الله سلطان عبد الله سلطان عبد الله سلطان عبد الله سلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسلوا يوتيوب شانل نوردي محمد فضلا تنوع سبسكرايب سبسكرايب لايك شير انت waa xagaa saaka waxa ku noqon doona iskuulkeygii aan dhigan jiray yaraantii waliba yaraan lama oran karay kulli toonnimi baan ahaa qalax secondary school kulli toole bal waxa commentiga nagu wadaagtaa saaxiibka aad wadada isla mari jirteen oo aad wadiima jirteen qalax ee nolosha kale muuqaal qurux badan ayaa idin ka diyaarin doonaa. عبد الله سلطان عبد الله سلطان saaxiibayaal kulli toole halkan aan imika joogaa waxa weeye jawaa iskuulkii hore halkii hore ay qalax ahaan jirtay waliba waxa la sheegaa taariikhda 1900 iyo dadkii hore ka horeysan doonaa markii iskuulka galnay macallimiinta laakiin waa 1900 iyo intii hore intii dawladii siyaad baray jirtay bal iskuulkii hore halkan ahayd iskuulkii cusbaa waa ku dhigi jireen markii tagi doonaa isla socod wanaagsan baad leenahay. عبد الله سلطان عبد الله سلطان saaxiibayaal hadda waxa taaganay iskuulka dhexdiisii 6 sanadood ka hor waxaan ka mid ahaa ardaydii halkan ka baxday waxaan iskuulka ugu soo noqday ardaydii aan isku galaaska ahayn oo macallimiin noqotay. Nuurdiin Xasan wuxuu ka mid yahay macallimiinta iskuulka aniguna waxaan ka mid ahaa ardaydii aan isku galaaska ahayn ka mid ahaa Nuurdiin waa soo dhaweynaya 2019 ilaa 18 waxaan ka mid ahay ardaydii dugsiga isku galaaska ahayn maanta anigoo youtuber iyo waxaan ku soo noqday adiga macallin waa taariikh noo qorantay horta meel noo taala waa ku soo dhaweynaya channelkayga soo dhawaa ku leeyahay aad baan u soo dhaweynayaa walaalkay channelkiisan Nuurdiin Maxamed Ciise oo 6 sano ka hor aan isku galaas hayn iskuul hayn waxa weyn maanta taariikhduna tahay 5 bishii 2025 oo tahay maalin Arbaca waa taariikh qorantaan leeyahay marka waxaan leeyahay walaalkay saaxiibkay waan ku dhawaay channelkaaga waan aad u soo dhaweynayaa aad u baahaysan Nuurdiin tan waa taariikh noo gaar ah aniga Nuurdiin insha Allah waa macallinkii labaad ee ugu yimaado iskuulka isagoo anagu aan isku galaasayn jirnay isla socod wanaagsan baad leenahay haddana waxaan garabkayga taagan macallin Cabdi Jaamac Garay macallin soo dhaweey aad iyo aad waan dhawahay bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم maanta waxaan joognaa dugsigii taariikhda gobolkan Gabiley ugu taariikhda weynaa iyo Somalilandba ee loo oran jiray qalax waa dugsi taariikh leh way taariikh weyn markaa leh waxaan oran karaa waxa uu soo saaray madaxda ugu faraha badan leh ee Somaliland ka shaqeysay iyo dalka markaa intiisa badanba waa iskuul shaqeynaya in ka badan 60 sano iyo markaa maxay wax ka badan fac weyn leh taariikh weyn leh dadka reer Gabiley ay ku hirtaan markaa had iyo jeer waayo waa dugsi markaas inta badan dadkuna markaa ay aad iyo aad u jecel yihiin lagu yaqaan markaa tayo waxbarasho waayo markaa waxa weeyaan waxaan aad iyo aad markaa u maadsan dadkay inta badan markaas way soo boqdaan meel walba way ku kala noolyihiin dadkii ka baxay markaa dugsigan sare qalax alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan maanta ku faraxsanahay idinkana waan idinku soo dhaweynaynaa waayo waxaan leenahay dee qalax lagu soo hirto insha Allah waxaan leenahay ardaydii ka baxday halkani waxa jirtay private u gaar lahaa macallin Cabdi Jaamac Garay oo ahaa future institute ilaa haddana shaqeeya oo aanu ka mid ahaa ardaydii dhiga jirtay oo waxaad soo mashan garaysaa saaxiibka oo kula dhigi jiray macallinkii privatekiisii soo mashan garay. bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhownahay channelka Maxamed Nuur yaga waxaan ka salaamayaa martida noo timid iskoolka wallahi aad iyo aad buu fiican yahay oo aqoontiisa aad iyo aad buu sareysaa ku soo dhawaada nolol ardayay oo ku soo biira dugsigan taariikh aad iyo aad u dheer buu leeyahay
markaa waxaan salaamayaa salaanta islaamka nagu salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan soo dhaweynayaa iskuulkan iskuulka qalax weeyaan wuxuuna leeyahay taariikh aad u weyn dhammaantiin waxaan leeyahay welcome. hadda waxaan taaganahay waa laabkii qaybtii laabka tijaabadaynu waa samayn doonaa markaan ardayga ahaa kulli tole halkan aniga Nuurdiin noo wada sharaxay maanta isaga sharxi doona anoo tijaabin doona insha Allah sax weyn waxaan dib u xasuusin doonaa barigaan ardayda ahay microscope-kan loo dhigi wayna markaa imika qaybihiisa wayna kala karna markaa kuwan halkan waxa la oran jiray markaa maxay IBs-ka weyn walkiisha la saarayay inta waxa la oran jiray waa body tube-ka ka waxa la oran jiray cortical adjustment-ka kaas body tube-ku korna u qaadaa hoosna u dhigo kan fayna adjustment loo yaqaan kuwan objective marley waxay la tahay maanta waxaan ku xasuusinaya wax 6 sano ka hor kugu dambeysay 6 sano ka hor waxa aad ku xasuusinaya waan kugu soo dhaweynaa dugsigaaga aad ka baxday ana soo dhiganaysay janankana aad baan u soo dhaweynaya marka waan testiga sameyn doona aniga kamid noqon doona ardayda waxaan ka qaadanaa bashashi baan ka maqlay marka salka wax la yiraahdo animal sariya balance marka imika inoo tiirsan animal silban eegana mise maanta waa animal sil weeyaan kanuu inoo tiirsan yahay marka animal silkan marka eegana ka tinta wixii ka soo baxday su'aal laga weydiinaya diyaar كل يطلع وقت يا سيدي مرايد ما حد يشرب لكن هذا مرايد وين صار لكن ما ركروا ما ركروا سما أركب وين واحد كمان سما كان أكسر كورس أشوف كاس سمينا يا كل تبغى ستيج كانوا كوتا قاتشنا يا فين أجلس مكان ستيج كاس كوتا كان ستيج ستيج مهم ستيج هو داون كان تقدر تسوي أبغى كذي لسنا فوقي يل فوقي فوقي وصحتك كسر كذا وشفت فلس كان بدرا يا جماعة إما كذا كذا أوكي لا هذا مركب رأيتي بعد أنت سير علير هاي حتى واركه هذا واركه سما هاي سلخوا دبعي الرمل اللي ذو أركه دبعي الرمل ما كان سلكي ينادي السناوي أوكي ما كان دبعها اسمحيجي ميكروسكوب كان أي لبلا لو قيمة أوكي من لا يقانا إلكترون ميكروسكوب من لا يقانا لايت ميكروسكوب أوكي مركا إلكترون لايت ميكروسكوب كان استعمال لسوق الميكروسكوب لايت ميكروسكوب كان استعمال له وحنا تصيعون waxa loo yaqaan markaa maxay waa cytoplasmki iyo waxa loo yaqaan cell membrane marka waxaad aragtaan maleynaya faalero sayr jaajuurka oo kala waa cell membrane waxa yiri madow arkiisina waa nucleuski weeyaan nucleuski qaybta kale ku dhex jirta waxa la oranayaa waa cytoplasmki weeyaan marka waxaan ku xasuusiyay 6 sano waxay kulli talo biology ma fiicnay baan kale halkan ka sii socon doona insha Allah qaybta labaad baa geli doona computerka isla socod wanaagsan baad leedahay السلام عليكم سو دواء دكسي سنة قلح سكندري سكول halka waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda maamulahayga macallimiintayda marti sharafta timaaday assalaamu calaykum saaxiibayaal hadda waxaan soo galnay gudaha iskuulka waxaan sii geli doonaa galaaskii anigu aan form 3 iyo form 4 ku dhigan jiray nabarshaad ilaa wali waxaan tusi doonaa sawir xasuusa oo aan ku galay galaas kamid ah galaasyada aan iminka u socdo إن شاء الله لكن هذه صوب ديجيتال شاشة نمر صاحبي لو حسوا قال قوبتي أصور كوكالي هل كان به تعقب الهوستة تعقد أصلا كوكالي سبسعد أكسب له صور كيا كوكالي ما أنت هسي وكذا كشاشة دي يعني إنه مرش كلاس كم من كلاس تيجي كل يجي سوق له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا أصحابتي كلنا نور الدين magacay waa watin maxamed muumin oo dhigata iskuulka qalax secondary school waxaan ahay ardayd ka mid ah galaaska 2B ku jirta xiisada computerka waxaan leeyahay soo dhawaada tiirka aqoontiyo waxbarashada tayada sare halka aad ugu tegi lahayd aan ku tilmaamay kaalay aan ku tilmaamay tiirka aqoontiyo waxbarashada tayada
sare halka aad ugu tegi lahayd aan ku tilmaame kaalay kaalay aan ku tilmaame تعلنت ساري عبد الله سلطان عبد الله سلطان عبد الله سلطان عبد الله سلطان تعلنت ساري عبد الله سلطان عبد الله سلطان السلام عليكم أستاذ أنت soo dhawaada saaxiibayaal haddana waxaan taagannahay waa qaybta kombiyuutarka oo ardayda xiisadoodii ku jira ayaan ka dul dhacnay waxaa dhigayay ustaad mukhtaar ustaad oo kusoo dhaweynaya marka koowaad kusoo dhawaad kule janaalka nuurdiin maxay nuurdiin horta waan dhowahay aad baad mahadsantihiin adiga iyo gruubkaaguba aad baan ugu faraxsanahay inaad igu soo booqatiin dugsigii sare qalax secondary school walibana khaasatan qaybtii laabka kombiyuutarka computer labka aad baan soo dhaweynaynaa soo dhawaada bilaan aad baa maastay kulli talo waqtigaan waan diganay iskuulka ma jirin kombiyuutarka ma shaqeynaynin laakiin waqti xaadirkan uu shaqeynayaa weliba dee si professional u shaqeynaya waan arkaa inta kombiyuutar yaalla kulli talo waxaan leeyahay ardaydan imika hor fadhiday iyo dhammaan kuwa soo socdaaba annaga inaga nasiib badan waayo anagu kombiyuutarka lacag kale ma bixin jirnay suuqa dib u geli jirnay si aan kombiyuutar u badnaa maantana ardaydii markii waqtigii horeysay xataa annagu halkan dhigan jirnay qof kastoo noogu soo booqdaa xoogin jiray waa naga chance fiicantii laakiin maanta dadkana naga tiyan chance fiican oo tiknoolajiyadii la haysta sabankoodiina la socda annagoo waqtigaas soo kacayna haddana chance maanaan helin inaanu helno kombiyuutar fiican laakiin maanta ardaydu way haystaan insha allah kombiyuutarka ayaynu waqti ku qaadan doonaa iminkana intaynaan muuqaalka soo xidhin halkan bay noogu dambeyn doontaa insha allah saaxiibayaal halkan muuqaalkeedii quruxda badnaa kusoo xidhi doonaa ee ahaa booqashadii aan ku tegey dugsigii yaraanta aan dhigi jiray weliba yaraan lama odhan kara saa hore sheegay qalax secondary school muuqaalka xiinta ku kulmi doono see you again saaxiibayaal